Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal halkan waa daalacan news channel meel kastoo aad joogteen waxaan idin leenahay kulan wanaagsan xubinteena warbixinada qaaska ah waxaynu ku soo qaadanaynaa warbixin dheer oo laga qoray madaxweyne farmaajo oo ku sheegay in ka tegitaankiisa galbeedka New York ay ahayd dhibaato maqaal dheer oo warbaahinta buffalonews.com ee laga leeyahay dalka Mareykanka lagu soo daawacay maalintii Sabtidii la soo dhaafay ee bisha Sebtembar ahayd 8 waxaa halgudhig looga dhigay hadal madaxweyne farmaajo ku muujiyay inay dhibaato weyn ku ahayd kasoo tegitaankiisii galbeedka magaalada New York WNY ee muddada dheer ku noolaatan iyo intuusan madaxweynaha ka noqon Soomaaliya sanadkii 2017 shabakada buffalonews.com waxay kaloo qortay inuu madaxweyne farmaajo ahaa nin deganaa jasiiradda Grand Island iyadoo ay xaaskiisa Zainab Cabdi caruurtiisa ay weli ku nool yihiin jasiiradda Grand Island madaxweyne farmaajo waxa usbuuca hore socdaalkii ugu horreeyay uu ku tegay Mareykanka tani markii uu go'aansaday bishii Agoosto ee la soo dhaafay inuu iska celiyo baasaboorkii dalka Mareykanka waxayna taasi u sahashay in Mareykanka uu ka helo maamuus madaxweyne iyo inuu la kulmo dhigiisa Mareykanka Donald Trump shabakadu waxay kaloo qortay in madaxweyne farmaajo uu ku qayb galay isla markaana khudbad ka jeediyay shirweynihii 74 ee golaha guud ee qaramada midoobay waxayna ahayd markii ugu horeysay ee uu ka hadlo xarunta dhexe qaramada midoobay magaalada New York isagoo halkaas ka jeediyay khudbad uu kaga hadlay dhinacyo badan warbixinta shabakada buffalonews.com waxaa kaloo lagu soo qaaday kulan dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo madaxa waaxda gaadiidka ee dowladda ee magaalada Buffalo Jambere kaasi oo mar madax u jiray madaxweyne farmaajo oo ka howlgali jiray waaxdaasi Jambere si diir u soo dhaweeyay madaxweynaha wuxuu weli ugu yaraa magaciisa Maxamed ama xitaa inuu yiraahdo saaxiibkii qiimaha lahaa shabakadu waxay qortay in madaxweynuhu uu salaamay Jambere kadibna oo gacan qaaday haloodanka magaciisa lagu soo koobay Kabuta madaxweyne farmaajo waxa ku kaftamay Kabuto waxa aad isiisay burger aad u wanaagsan Kabuta ayaa ku jawaabay waxa uu muuqata qof muuqaalkiisa la yaabo aragaaga waa fiican yahay madaxweyne farmaajo intuu nool cadeeyay oo laabtiisa taaftay ayuu ku yiri ma ogid waxa ka socda gudaha weli wuuna ku qoslay madaxweynuhu ma uusan shaacinin macnaha ugu jeeday waxa ka socda gudaha sida ay warbaahinta Buffalo News daabacday dhinaca kale maqaalka warbaahinta buffalonews.com waxaa lagu soo bandhigay siduu madaxweyne farmaajo u danaynayo inuu ka shaqeeyo gudaha Soomaaliya iyo sida uu dhibaatada ugu arkay ka tegitaankiisii galbeedka New York shabakadu waxay madaxweyne farmaajo ka soo xigtay hadallo uu ku yiri waxay qiimo ku leedahay inaad joogto gudaha Soomaaliya balse mararka qaarkood marka ay xaalado igu soo rogmadaan waxaan soo xasuustaa noloshii sahlaneed ila jirka qoyska iyo deriska wanaagsan ayuu yiri madaxweyne farmaajo waxa uu inta sii raaciyay waxaan markasta maskaxda ku soo dhaca marka aan kaliya fikiriyo arintaas laakiin marka aan arko malaayiin qof oo dhibaataysan waxaan isiraahdaa tana qiimo badan in la sii wado iyo in kaalin laga qaato taageeradooda si loo sameeyo taariikh magacna looga tago madaxweyne farmaajo oo 57 jir ah waxa uu sanadihii 1980 shaqaale ka noqday safaaradda Soomaaliya ku leedahay magaalada Washington waxa uu nolol cusub ka bilaabay magaalada Buffalo halkaas uu qoys ku yeeshay kana helay 2 shahaado jaamacadeed sanadihii 1998 iyo 2009 sanadkii 2010 waxa uu shir la yeeshay madaxweynihii dowladda ku meel gaarka ee xilligaas Sheekh Axmed oo joogay New York si uu qayb galo shirkii qaramada midoobay warbaahinta buffalonews.com waxay qortay inuu madaxweyne Shariif ka codsaday farmaajo inuu ku soo laabto Soomaaliya si uu u noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda farmaajo waa uu ajiibay codsigaasi markii uu noqday ra'iisul wasaaraha waxa uu hubaal ka dhigay inay ciidanka si joogto ah u helaan mushaarkooda bil kasta iyo inuu la dagaalamo musuqmaasuqa balse madaxweyne Shariif waxa uu xilka qaaday farmaajo wuxuuna sanadkii 2011 dib ugu soo laabtay noloshii hore ee galbeedka New York ee dalka Mareykanka wuxuuna dib u bilaabay shaqadii hore uu ka hayay waaxda dowladda ee gaadiidka ee magaalada Buffalo farmaajo wuxuu halkiisa ka sii waday dadaalkiisa inuu dib ugu noqdo dalka Soomaaliya wuxuuna dhisay taageero gudaha iyo qurbo joogta ku nool gudaha Mareykanka taasi oo sahashay
inuu ka qayb galo tartankii madaxtinimada ee kaga guuleystay 21 musharax doorashadii dhacday sanadkii 2017 taasi uu ku noqday madaxweyne.